oo kale inaan halka ka diro fariin nabadeed waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socda deegaanada mudug gaalkacyo gaar ahaan iyo galbeed inta u dhaxayso waxaan kaloo rabaa fariin halka ugu diro qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Ceerigaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay dadka reer Puntlandna ay degan yihiin Somaliland ay degan tahay soddonkii sano la soo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dawladda Puntland ay ixtiraami jirtay dawladda Somalilandna ay muddo dheer ixtiraamisay isbeddelka Somaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceerigaabo waxaan halka fariin uga dirayaa mas'uuliyiinta Somaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno waxaan rabnaa cadowga qura Soomaali leedahay meel kasta ha joogtee inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan ku soo foolle waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin waxaynu u baahannahay nabadda inaynu ka shaqeyno waxaynu u baahannahay kala dambeynta inaynu ka shaqeyno